muuqaalka maanta waxaan idinkugu sharxi doonaa sida ugu fudud ee loo dhiso kombiyuutar weliba nooca desktop-ka ah. waxaynu isticmaali doonaa barnaamij la yiraahdo Cisco, kaasi oo ah barnaamij loogu talagalay in ay ku tababartaan ama markaasi lagu tababaro ardayda IT-ga ah. barnaamijkan waxaa leh shirkad la yiraahdo Cisco waa shirkad caan ah oo dunida dhan laga wada yaqaano, inkastoo ay caan ku tahay dhanka kombiyuutarka weliba network. Cisco waxay soo saartaa barnaamijyo badan oo markaasi aan jeclahay in aad booqatid web page-kooda iyo waxyaalaha ay tahay in aad sii baaratid. barnaamijkan la yiraahdo Cisco IT Essential oo la yiraahdo virtual desktop computer waaye. waxaynu baran doonaa sida loo dhiso kombiyuutar iyadoo aad raaci doontid hab markaasi sharciyeysan oo isku xiga. waxaan sharxi doonaa qayb waliba adigoo markaasi laga doonayo in aad soo qaadatid notebook-kaaga, kadibna aad ila raacdid qayb waliba oo aan sheegana aad note gareysatid. qaybaha ama ereyada la soo gaagaabiyay insha Allah waxaan ku dhigi doonaa qaybta hoose ee markaasi muuqaalka hadda aad daawanaysid. ugu horreyn, barnaamijkan la yiraahdo Cisco IT Essential Virtual Desktop waxa markii aad soo kicisid as a flash player waxa ku furi kartaa web browser marka waa barnaamij Google Chrome iyo barnaamijyo badan jiro. hadda iyaga flashka way diideen in ay ku soo furaan applicationadooda 2021 way canceleen. marka hadda aniga waxaan isticmaalayaa barnaamij la yiraahdo Slimchat oo web browser ah. insha Allah haddii aad jeceshahayna waan kula wadaagayaa. ugu horreyn, markii aan soo kicino barnaamijka aynu ku furfureyno barnaamijka kombiyuutarkii shaashadiisa noocan ayuu eg tahay muuqaal ahaan. waxaynu qaadanaynaa wax yaro touring micnaha barasho ah oo aad ku baran doontid barnaamijkan shaashadiisa. ugu horreyn, markii aad soo kicisid barnaamijka waxa uu leeyahay qayb barasho, qayb imtixaan iyo qayb kombiyuutarkii oo idin lagu wada tusi doono. waxa ugu horeyso qaybta barasho waxa lagu bari doonaa shuruucda ama habka markaasi loo maro markii aad kombiyuutar dhisaysid. qaybta examka ama testiga waa lagu tusi doonaa aalad waliba, laakiin meesha lagu xiri lahaa laguma tusayo. halka learningka lagu tusi markii aad soo qaatid aalad meesha aad ku xiri lahayd ayaa lagu calaamadeynaya, laakiin testiga laguma calaamadeyn doono. explorerka waxa waa kombiyuutarkii oo xirxiran in lagu tuso oo aad dul wareegtid aaladihii iyo god walba ay ku wada xirmayeen. waxa ii xiga qayb markaasi la yiraahdo layers of access. layerkan waxa kugu jira dhammaan qodobada aad qaadan doontid ilaa 7 qodob ayaad qaadan doontaa oo aan halkan kugu sharxi doona, iyo 2 qayb oo kala ah imtixaan iyo qayb markaasi in aad lagu soo bandhigo shaashado idil ama kombiyuutarkii oo dhameystiran oo wada xirxiran. waxa ii xiga qayb la yiraahdo installing components. waa qaybta hoose waxaa soo bixi doona dhammaan ama ka soo bixi doona dhammaan aaladihii aad ku xiri lahayd kombiyuutarka ayaa lagu soo dhigi doonaa qaybta hoose. waxa ii xigo aligning components. waa shaashada dhexda taalo. shaashadan dhexda taalo waxa ay kuu suurtagelinaysaa in aad isku dabaridid oo isku habaysid aaladihii ama god walba oo la gelin lahaa. waxa ii xigo qayb la yiraahdo explore components. aaladda markii aad dul istaagtid waxay leedahay qayb markaasi more oo wax badan si arag. waxa lagu soo bandhigi doonaa aaladii sawirkeeda. haddii aad rabtid 3D rotation aad u suubi kartaa, waad gedgedin kartaa, dhafarta dhinacaad ka fiirin kartaa macnaha. waxaa xiga qaybtan marka oo ah qaybtii aad ka bilaabi lahayd hooshooyda. balse markii aad kombiyuutar dhisaysid ugu horreyn waa in aad taqaanid hardware-ka. haddaadan hardware soo qaadan wax badan muuqaalkan lama socotoontid oo wax badan ayaa kaa maqnaan doona fahamkooda. although haddii aadan xataa wax badan kombiyuutar fikir aad ka haysan, concept aad haysadid muuqaalkan uu ku anfici doono insha Allah wax badan aad ka baran doontid. ugu horreyn, markii aad imaadid shaashada noocan ah waxa lagu tusayaa dhowr qaybood oo kala duwan. marka qaybahan waa 7 qayb. qaybta ugu horeyso waxay ku leedahay in aad xirtid kombiyuutarkaagii power supply-ga oo aad wada taqaanidin waa systemkii qaybihii ahaa ee dabka bedelay. marka haddii aadan haysan power supply kombiyuutarkaagu macnaha dab ma helay. marka ugu horreyn isaga ayaa laga bilaabi doonaa. haddii aad jeceshahay skip waa dhigi kartaa, halkan waa iska xiri kartaa.
haddii jeceshahayna isaga ayaad ka bilaabi kartaa. Marka skip haddaa dhahdid isagoo kasoo bilowday oo kale waa same, inta ku dhufo ama inta ku dhufo. Marka halkan ayaan ku dhufanaya. ugu horeyn marka kombiyuutarka uu kuu soo baxo shaashadiisa, waxa waajib ah in aad taqaanid horta qolofkan kombiyuutarka. waxaa la yidhahdaa case ama computer case. Case-ka waa qolof ka suubsan caag iyo biro, kuwaasi oo la isku keenay, bool la isugu xiray, qaarkoodna koolo isugu dhiji. marka case-kan wuxuu kuu suurtagelinayaa in kombiyuutarkii aad isaga ku dhex markaasi xirxirtid, waana gurigii kombiyuutarka. haddii ay jug soo gaarto, wuxuu leeyahay aalado badan oo markaasi protection ah oo ka ilaalinaya qaybihii internal componentska ama aaladihii gudaha ku jiray inuu dhaabac gaaro. marka ugu horeyn aad baratid case waxa la yiraahdo, waxaanu baran doonaa waxa la yiraahdo power supply. The power supply waa systemka bedela dabka kombiyuutarka u imaanaya. dabka kombiyuutarka ee fiilada socoto ee korontada gurigaaga soo gasha waa dab ku socdo xabaare saa'id ah. xabaarahaasi kombiyuutarka haddii si toos ah loogu daayo korontadaas, waxa dhici karta in uu qiiqo kombiyuutarkii una gubto halkaasi uu ku gubtaba. marka dabkaasi kombiyuutarka u imaanaya waxaa la yiraahdaa AC oo loo soo kaabsho alternating current. dabkaas ayuu qabanayaa systemka, wuxuu suubinaa hawl la yiraahdo converting oo ah in la bedelo dabkii. dabkii marka uu bedelo, wuxuu ka dhigayaa dab markaasi dabacsan oo kombiyuutarku isticmaali karo. dabkaasna waxaa la yiraahdaa DC oo loo soo kaabsho direct current. marka systemkan waa mid aad muhiim uga ah kombiyuutarka howlaha uu qabanayay iyo siyaabooyinka kala duwan ee uu shaqeeyo ama siinta dabka jirka kombiyuutarka u idil. marka isaga ayaa ugu horeyn xireyna. waad soo qaadaysaa systemka adigoo left click hayo, halkan ayaad keenay. kadib waxaad doosinaysaa habka uu u taagan yahay, adigoo hoos marinayo qaybta dabka uu ka qaato ayaa waxaad leedahay kadib install. sida caadada u ah power supply-ga waxaa ku xirma 4 bool. haddaadan jeclayn inaad xirtid oo aad soo bixisid adigoona boolasha ku xiran ayaa waxaa ku leedahay left click. marka hadda waan install kareynaya. okay, marka aan ku xiro kombiyuutarka, now screw the power supply. bool ku xir ayaa lagu dhahay. boolasha waa kuwana 4 bool waaye, waxaad ku aadinay dolooladooda oo kaliya, isaga ayaa ku xiri doona. waxaad leedahay qaybtan waad dhamaystirtay, hadda you have completed. hadda waad dhamaystirtay qaybtan markii lagu xiray power supply kombiyuutarka. waxa ii xigo markii la xiraayo, hadda waxaan raadin karaa the power supply waa maxay. wuxuu ku siinayaa markaasi voltage-ka loo baahnaa dabka. dabkaasi oo kombiyuutarkii xubnihiisa elektarooniga ahaa ay u baahnaayeen, kuwaasi oo kombiyuutarku uu kadib dabka isaga sii siinayo. dabka guud uu qabanayo waa dab AC ah, uu dilayaa. dab dabacsan oo DC ayuu ka dhigayaa kombiyuutarkana uu isticmaali karo. marka instructionka itus ayaa dhigi kartaa habka la mari lahaa. waa kan power supply-ga qaad, kadib ku aadi godkiisa, power supply ku xir. that's all. waxa ii xigo motherboard. waa maxay motherboard? motherboardka waa alwaaxa la yiraahdo circuit board, ama waxaa la yiraahdaa planar board, ama waxaa la yiraahdaa logic board, ama base board. qoloba wax bay dhahaan, laakiin motherboardka waa alwaaxa elektarooniga ah ee ku xidhmaan dhammaan xubnaha muhiimka ah ee kombiyuutarkaaga. waxaa la dhahay motherboard. mother waxa loogu bixiyay alwaaxa hooyada. waxa loogu bixiyay anything ama aalad kasta oo ku jirta kombiyuutarkaaga, isaga ayay ku dul xiran tahay macnaha. marka waa muhiim motherboardka haddii ikraafa gaarto kombiyuutarkoo dhan wuu joojinayaa shaqada uu hayo. marka waa inaa ilaalisaa. by the way, halkan waxaan ugula siiyey ku bilow the motherboard is a main printed mujeda circuit board. waa qeexitaankiisa kaasoo lagu xiro dhammaan components of the computer. on the motherboard waa halka aad ku shaqaynaysid ama aad ku xiri doontid dhammaan xaaladahan soo socdo. go CPU. what is a CPU? marka CPU waa maxay? maxaase laga soo gaabshay? CPU caadiyan magacaasi qof walba wuu maqlaa,
balse waxa laga soo gaabiyey lama hayo fikir ahaan. CPU waxa laga soo gaabiyey Central Processing Unit. waxaad ku qeexi kartaa qeexitaan yar the brain of the computer. waa maskaxda kombiyuutarka. haddii marka CPU-gu uu shaqada joojiyo kombiyuutarkaaga 99% shaqadii wuu gabay. waa caqligaagii heerka meesha uu ku taagan yahay jirkaaga. hatta jirku kama maarmo caqliguna jirka kama maarmo. marka waa sidaas iskula shaqeynayaan. CPU waa halka howluhu kombiyuutarka uu ku qabto laguna process gareeyo laguna turjumo. marka kombiyuutaradu way kala qaalisan yihiin. CPU-ga ayaa qaali ka dhiga raqiisna ka dhiga. marka kombiyuutarkaaga waxaad maqlaysaa dual core, core i3, core i5, core i7. macnaha waxay isdheer yihiin CPU-ga inta wareeg uu suubin karo per second. kuwa waxay qabtaan malaayiin, kuwa billions, kuwa trillions. marka lama gaari karo CPU hatta horumar inkastoo laga gaaray. mobilada xataa la isticmaalay smartphone-ka kuwa CPU-gooda ama graphics card-ka ku xiran iyo RAM-ka ku xiran ay qaali yihiin oo macnaha ka dhigaya telefonkaasi inuu $1,000 ka dulmaro. marka telefonka quruxda looma eego oo geliya waxaan la fiiriyaa CPU-ga ku xiran iyo insha Allah waan gaari doonaa RAM-ka ku xiran. marka CPU-ga waa halka howl waliba lagu qabto, waana maskaxda guud ee kombiyuutarku howlahu ku soo turjumo gidibna uu ku fahmo. marka CPU-ga markii la xirayo ugu horeen left click ayaad ku qabanaya, waxaad ku aadinaya kodkiisa. kodka lagu xiro waxaa la yiraahdaa socket. waxaa ku hareeraysan transistors iyo kuwa dabka ka daafaca. marka CPU-ga waad wareejinaysaa wax yar ilkihiisa markii ay ku aadaan ilkahan ayaad install gareynaysaa. markii isku aadaan iligtan gantan iyo kantan iyo kantan iyo meeshan markii isku aadaan install ayaad leedahay. wax yar ayuu rabaa in la wareejiyo bis. marka waxaa leeyahay install. shaash daboolkii guud ayaan ku xiray, daboolkii kale ayaan ku xiray. marka waa maxay aaladan thermal compound? thermal compound waa koolo CPU-ga lagu dul shubo, taasi oo kale ilaalinayso marwaxad CPU-ga lagu dul xiro iyo CPU-ga. sidoo kale waxay ka kooban tahay chemicals taasi oo kuleelkana la dagaalaya. marka thermal compound-gu waa muhiim. haddii kombiyuutarka uu ka dhamaado waxaa soo wajahaya CPU-ga kuleel badan ama markaas temperature-kii oo siyaado iyo xaalad aan caadi ahayn oo kombiyuutarku markasta la kulmayo, sida inuu iska damo ama markaasi processadii ama howlaha uu qaban lahaa CPU uu waqti ku qaato. marka thermal compound-gu lacag badan ma joogto. mar walba CPU la bedelayo waa laga tirtiraa, mid cusub lagu shubaa, waa waajib. CPU-ga dabciyan waxaa ku dul xirma aalad la yiraahdo heat sink. waa marwaxad oo CPU isaga maamusho. marka CPU-ga marka lagu xiray marwaxadan waxay ku dul istaagaysaa isaga ay ku dul fadhiisaneen. kooladaas oo kaliya ayaa kala ilaalinayso. marka install aan dhaho boolarka uu leeyahay heat sink-ga warbixin yar kaasi. marka waa marwaxad ku dul xiran CPU-ga taasi oo qaboojisa. macnaha uma taagna inay wax kala qabato, kaliya CPU-ga iyo agagaarkiisa ayay maanta dhan ku wareegsanaysaa oo ay haba siinaysaa. marka saas liajligii heat sink-gu waa aalad muhiim u ah CPU-gu. haddii la waayana heat sink-ga ama shaqada joojiso ama ay wax ku dhex dhacaan ama boor istaago ama wasaq ay ku dhex istaagto, waxay noqonaysaa in kombiyuutarkaagu markuu soo kaco uu damaatana. taasi oo ugu wacan tahay in uu waayo marwaxadii qabooji lahayd. marka CPU go'aan wuxuu ku gaaraa in kombiyuutarka dhan la soo dimiyo. marka wuxuu leeyahay heat sink-gaasi hal fiilo oo aaga ama agagaarkeeda la geliyo. waxa ay leedahay fiiladaasi 4 god. marka install ayaan leeyahay 4deeda god way kash. fiilacad afkeeda waxa uu soo xiri doonaa thermal compound-ga. waa sheegay waa kooladii aan ku shubo CPU heat sink-ga ama fan assembly waxaa la yiraahdaa. waa marwaxadan fan assembly ama heat sink la yiraahdaa magaceeda. waxa ku xiri doonaa RAM-ka maxaa la yiraahdaa? marka lafaha RAM-ka waa laba badanaa kombiyuutarada casriga ahna hal ayaa ku imaada. the RAM waa maxay? marka RAM-ka muxuu qabtaa?
inaad fahandid waa very important. RAM-ka waa memory waliba nooca la yiraahdo primary memory. Memory-gan waxa uu keydiyaa markii lasoo dhiibo ama hool loo soo dhiibo CPU markii hool loo soo dhiibo isaga hawsha marka uu qabanayo meel uu dhigto u baahan yahay hawsha. sida waxa tusaale yar kuugu filan maanta markii lagu dhaho shaygan feeree dhar ama lagu dhaho hilibkan jarjar waxaad u baahan tahay meel aad dul saaratid oo aad ku jarjaratid sax. marka CPU hawsha isaga wuu qabtaa wuxuu leeyahay memory yar oo gauges ama file yar u hayo isaga xogta programmada waaweyn ma qabanayo. marka wuxuu u baahan yahay meel uu wax soo saarto si uu hawshi ugu turjumo. marka CPU markuu hawl qabsanayo wuxuu soo dhigtaa RAM-ka. CPU-gaada wanaagsan RAM-ka haddii uu yar yahay hawsha computerka uu qabanayo waqti badan ay qaadan doontaa. sidoo kale RAM-kaaga weyn CPU-gi oo liita waxay noqon doontaa computerkani inuu culus noqdo. marka labadu waa waajib inay isla weynaadaan. dala aan ku siiyo marka computer haddii aad gadanaysid RAM-kiisa waa in uu ahaadaa 8GB ama ka badan. hadda waayo ardayda IT haddii aad tahay IT haddii aadan ahayn 4GB wuu kuugu filan yahay. macnaa ardayda IT-gu wuxuu kicin doonaa programmi waaweyn kuwaasoo u baahan RAM weyn iyo CPU weyn. CPU-ga caadiyan Core i3 hadda waa jiraa laakiin haddii tabar ay jirto Core i3 iska gado. haddii aysan markaasi lacag heli kartidna Core i5 the best ama aad kasii badaysidba Core i7 haddii aad heli kartid. marka the more oo CPU-ga koorkiisu sareeyo the more uu awoodana qabanayo. marka insha Allah CPU si gooni ayaan usoo falanqeyn doonaa noocyada kala awood badan. waxaad arkaysaa Core i5 computer iyo Core i7 computer Core i5 ki awood badayo. sabab ayaa meesha ku jirta. marka insha Allah si gooni ayaana kaasi muuqaal ugu duubi doonaa. marka RAM-ka waxaan dhahay waa gogasha hawsha la soo dhigto. markii hawl la qabanayo computerkii tusaale waxaan soo furay programka la yiraahdo Microsoft Word oo aan soo baranay. markaan soo furo programka waxa laga soo bixin doonaa hard drive ama hard disk koob la yiraahdo. waxa la soo dhigi doonaa RAM-ka. ninka soo dhiganayo hawshaasi kala wadana waa CPU-ga. marka halkaasi iigu hay documenti aan qoray tusaale. marka documenti aan qoray intaas oo dhan RAM-ka ayuu ku jiray. laakiin documenti haddii aan dhaho Control S oo aan dhigo desktop-ka RAM-ka waa laga saaray waxaana lagu keydiyay hard disk-ka. hard disk insha Allah si gooni waan arki doonaa waa anjal computerka ku jira oo xogta u keediya. marka RAM-ka iyo hard disk-ga isku mid ma ahan. RAM-ka adiga waxa ma geli kartid. CPU-ga xogta soo dhigta isaana kala baxa. waxaan heli doonaa RAM-ka koowaad bismillah. marka aan ku aadiyo godadka ee kalaan 4 god ayaa banaan. marka labadaasi god madowga ayaan ku kala xiran doonaa ama godadka blue-ka no problem adiga leey meesha isagoo ku aansada ayaa ku xiran doonta. hal mar ayaan soo wareejiyay RAM-ka marka uu ku aado ilikaysa ama godkiisa 2 caag ama 2 pin ayuu dhinacyada ku leeyahay. iyaga ayaa ku dhagi doono. waxa leedahay oo kaliya install. pinka ayaad click ku leedahay kan kalena click ayaad ku leedahay. u qabsan doonaa. good. waxaan soo qaadaa RAM-ka labaad isagana waxa la yiraahdaa godadka lagu xiro RAM slots kaas marka waa waajib in aad taqaanid 4 slots ayuu heli doonaa. slots kaasi waa 4taasi waa sii basan kartaa oo macnaha labada kale waxa lagu siiyay balse 2 RAM ayaa kugu filan oo 2GB 4GB is enough. marka hadda waxaan dhahay install. kadib waxaan dhahay oo pinka ayaan taabtay iyo pinka kale labadii RAM halkaas ayaan ku xirtay oo hadda waxaan ka dhamaaday motherboard-ka components-ka lagu xiri lahaa. marka waxaan soo qaadayaa motherboard-ka install motherboard aan leeyahay. waxaana waajib mar walba motherboard-ka aad xirxiraysid in uu dul yaalo ama la dul saaray suuf ama wax jirto markaasi bac loogu talkalay motherboard-ka oo badanaa ku imaata taasoo ku tuutuuban marka farash ahaanna loogu dhigo. haddii taas la waayo oo ay gaarto karaafa ama wax la mida ama qoyaan motherboard-kaaga wuu guban karaa. waana halis. motherboard-ka wuxuu ka kacaa $90 way kala qaalisan yihiin. marka waxaan jeclahay haddii aad computer furfuraysid inaad ilaalisid motherboard-ka. marka waan wareejinayaa marka systemka lagu xiraayo ilkiis hore ayaan aadiyay waxaan leeyahay install.
install motherboard marka aan dhaho uu dhulkiisa fadhiisto waxa soo jiitaa la dhahay screwska boolishii soo jiid waxa ku xirmi doona motherboardkaaga at least 11 ilaa 12 bool hadda halkan waxa igu qoran 3 kor iyo 3 dhaxda 2 dhaxda waa 8 iyo 3 hoose waa 11 marka install aan hal mar aan ku wada daayo dhamaan boolishii isaga ayaa ku xirmi doona waxaan leeyahay okay marka intaasi waxa iiga gudbay instructionskii ama shuruucdii markaasi liisiye and waxa ku siin doona instruction oo ah marka habka hata aan aniga wax u sharxay oo iyagoo faahfaahsan oo sawir ah oo macnaha markaasi hadal oo kooban ah marka adiga hadii aad jeceshahay instructions ka furo sharxaad tartiib u raac waxa ii xigo adapter cards ka waxa lagu xiraa badanaa expansion slots ama expansion cards alasku yiraahdo magacooda guud adapter card ka waxa la yiraahdaa and intaanan u gudbin adapter card waxaan jeclaa inaan ku soo dulmaro motherboard the motherboard wuxuu leeyahay godad markaasi motherboard ka u gaar ah markii banaanka laga imaado motherboard ka sawirkiisa waa kan marka waxa jira godad uu leeyahay oo waajib ah inaad wax badan ka baratid waxa ugu horeeyo aan ka soo bilaabi doonaa and labadan god oo la yiraahdo PS2 ports godkan waxa lagu xiraa midabka noocaas leh muuska halka godkana lagu xiro keyboardka waxa ii xigo the parallel port waa god lagu soo xidhiidhiyo markaasi printerada hore hadda printer waaweyn jiro oo aan isticmaali karin USB ga marka waxay u baahan yihiin parallel portiga printeradaasi waaweyn ayaa aad loogu isticmaalaa oo badan lagu xiraa waana god markaasi leh 25 pin 8 oo data ah xogta qaata 4 oo output control ah 5 oo input control ah iyo 8 oo ground ah iyagoo faahfaahsan godadkaasi warbixintooda waxa dhigaya buugga hardware-ka aan ka socdo waxa ii xigo god la yiraahdo serial port the serial port waxa loo isticmaalaa sidoo kale in lagu xiro printeradii hore game controller oo ah kacanka gameka lagu dheelo muuska iyo markaasi keyboardadii hore marka hadda way ka soo gureen keyboardadii hore noocan ay isticmaali jireen mar noocan ay imaadeen waxay u soo gureen godad la yiraahdo markaasi USB oo u taagan universal serial bus marka waxa ii xigo god la yiraahdo VGA oo ah video graphic array port waa godka lagu xiro fiilada muuqaalka geesa shaashada waxa la yiraahdaa VGA waxa ii xigo USB ports waa universal serial bus waa godka markaasi lagu xiro muusaska keyboardada printerada hadda jiro waxyaalahaas oo dhan aaladaha dhan hadda oo la isku yiraahdo peripherals ama external hardware-ka waxay u soo wada gureen dhammaantoodba USB-ga USB waxa ku xirma oo hadda diiwaan gashan 127 aalad oo macnaha markaasi ah aaladaha lagu xiri karo USB-ga marka inkastoo ay hadda ka sii badanayaan marka dambeeso ay wax soo baxayaan saacatan hadda hadlayo inay aalad soo baxda macquul ah oo lagu taray marka waxa ii xiga godkan oo la yiraahdo Ethernet port ama godkan la yiraahdo LAN oo u taagan local area network waxa lagu xiraa fiilada internetka siisa computerka ma ahan fiilada leeleenka dadku isku qaldaan waxa lagu xiraa fiilada internetka siisa computerka godkan ayaa ii xiga oo la yiraahdo firewire port firewire port waxa kaloo la yiraahdaa IEEE oo 1394 waa magac kale ee lahayd waxa loogu talgalay in lagu xiro external hard drive waan soo dhigay external hardware iyo internal hardware jira sax external hard drive jiro computerka lagu xiro marka godkaas ayaa la suri doonaa godkaas markii la suro waxay ku sahlee oo markaasi xogtaada soo gudbi kartaa si ka degdeg badan 100% markii lagu xiro godkan USB-ga marka godkan waxa aad u isticmaala dadka marka xogaha aad ka waaweyn sida 1000 GB xog ah oo aad taqaanid 1000 GB 1 terabyte la yiraahdaa 1 terabyte xog ah markii la soo qaadayo oo halkan la gelinayo computerkii ama computerka laga qaaday hard disk lagu shubayo wax macquul ah in ay waqti badan cunto marka waxa waajib ah in aad isticmaashid godkan firewire port si daqiiqado kooban xogtaasi la soo gudbiyo
I hope inaad fahantay. And waxaa ii xigo Sony card. The Sony card ama isagoo wuu jiraa kaar ah oo la gado isagoo computerka lagu xirayna wuu jiraa. Marka Sony card waxaa lagu xiraa dhowr aalado kala duwan. waxaan ku hormari doonaa godkan binkiga ah waxaa lagu xiraa microphone. The microphone jack ayaa la yiraahdaa. The microphone jack waxaa la soo geliyaa markaasi microphone-ka aan anagu Soomaali ahaan microphone aan u naqaano kan codka soo qaadaya ee aad ku hadlaysid ayaa la geliyaa si codkaasi qofka soo hadlay computerka gudihiisa loogu gudbiyo. waxaa ii xigo god la yiraahdo headphone jacks. The headphone jack waa godka aad suranaysa dhagaha aad xiran lahayd codka computerka soo qaadaya kadibna aad ka maqli doontid. waxaa ii xigo lightning jack port. The lightning port waxaa lagu xiraa hadda dadka badan ee wada yaqaanaan and CD player. The CD player ama musical instruments aalada la yiraahdo iyo kuwa kaloo badan markaasi and waxaana aad u isticmaala dadkan filmaanta codka saara. waxaa kaloo aad u isticmaala dadka and markaasi fanaanada ah ama kuwa codka tuuba. marka codka aaladii muusigii codkii ku jiray ama instrumentigii codka laga soo qaadi lahaa ama qalabkii muusiga dumay cod in laga soo qaado codkaasi oo computerka soo dhex galo isagoo signals ama waves si wax u dhacayaan halkaas laga taabado wixii qaldanna la saxo. waxaan aad u arkaa badanaa shacabku isticmaalaan computer dhif ah leh hadda oolado laga guuriyo godkan waxaa isticmaalaya oo geliya dadkan wariyaasha kuwan markaasi habeeyo codadka awriha oo kaliya ku shaqeysta. kaasi waa godadka guud oo lahaa computerka motherboardkiisa. halkaas ayaan kaga soo gudbay. waxaan u gudbay adapter card. Adapter card maxaa la yiraahdaa marka? waa kaararka dibadda loogu soo xiro computerka. waan boobsiinaya although waqti nagu markaasina kulaalayo. waxa ugu horeeya kaarkan oo la yiraahdo network interface card oo loo soo kaabshay NIC. waa god kuu fududeyn doona in aad ku xiratid fiiladaadii internetka haddii aadan haysan micnaha godkii ama markaasi fiilada internetka la geli lahaa ama ay ka halaawdaba godkaasi. marka waxaa la yiraahdaa network interface card NIC ayaa loo soo kaabshaa. waan soo jiidayaa waxaan keenayaa godkeeda. waa godkaas madow ayay gashay hal screw ama hal ball ayay wadataa. khalaas waxaa ii xigo wireless card ama markaasi wireless network interface card. waa kaar markaas lagu xiray anteeno. kaarkan badanaa waxaa lagu xiraa computerada miiska la saarta ee la yiraahdo desktop model. maaha nooca markaasi all-in-one-ka ah. all-in-one-ka iyo waxooda dhan waa isku wataan laakiin desktopka kuwa ah nooca towerka istaagka ah systemkii shaashada kala socdo badanaa kuma imaadaan wireless adapter card oo ah kaarkii soo qaba lahaa internetka agagaarkaaga ah ama wirelesska ah. marka badanaa waa waajib in aad soo gadatid kaarkan haddii computerkaagu noocaas yahay kadibna aad ku xiratid. iyagoo USB ahna way jiraan oo la suro computerka si markaasi uu internetkii usoo qabto although ay culays yihiin. marka way kala qaalisan yihiin. waxaa lagu cabiraa markaasi megabyte per second. megabyte per second waxa waaye inta megabyte uu ilbiriqsigii tiri karo xogta ahaan. marka kaarkan ayaa xiray oo computerka waxaa ku xiray godkaas cadaanka ah expansion slotska. marka godkaas expansion slotska aan geliyo waxaan ku xiraa halkiisa ball. waxaa ii xigo video card. kan waxaa filaa in aad loo wada yaqaano. The video card waa kaarka muuqaalka durjumo computerka. waxaa ku jira markaasi graphic processor sawirkii computerka shaashada loo soo gudbin lahaa fiiladii shaashada muuqaalka geynaysa inta la suraa. laakiin sawirka computerku uu soo diraya sawirka markuu soo diro computerka wuxuu u imaanaa kan kaarkan ayuu u imaanaa. kaarkan wuxuu ku aansanaa sawirka sida loo suubi lahaa iyadoo xog computerized ah loo soo diri doona computer language ah. wuu turjumaya marka wuxuu ka dhigayaa codtii signalska aheed wuxuu ka dhigayaa pixels sawiro isku aadan. sawiradii ayuu iskarb dhigi doonaa. pixelskaasi marka waa halkii god waxyaalahaasi marka isku keeno waxa ka soo bixi doono dhowr milyan oo pixel hal sawir oo qurux badan. ninka soo dhisay xogtaas dhan maamulayna waa graphic card. The graphic card badanaa computerku ku imaadaa waa mid macmal ah motherboardka lagu soo alxamay laakiin badanaa graphic cardka waxaa gato dadka gamemka dheela iyo dadka fidiyaasha culus habeeya
marka graphic card waa fast computerka ka dhiga muuqaalkii la soo bandhigi lahayna si qurux badan ayaa loo soo bandhigi doonaa although ay kala qaalisan yihiin marka graphic cardka marka aan ku xiriyo halkan ayaan geynayaa god madow kaar ayuu leeyahay bahal bool ayaa kor kaga xirmaya halkaas waxaan kaga baxay adapter card waa aaladahan lagu xiraayo computerka marka magacyadii aaladaha aan xiray haddii aad u baahan tahay adapter cardka markaan doorto halkaas ayuu ka bilaabayaa network interface card wireless interface oo qeexitaankeedii wireless oo network interface adapterka wuxuu leeyahay wireless network interface card waa adapter card kaasoo loo isticmaalo in lagu xiriiriyo computer kale as a wireless a video adapter card waa videogii kaasoo soo diraya xogtii computerka shaashada keenay waa aaladaha saddexda aalad aan xiray waxaan u gudbiyaa internet drives aaladaha gudaha loogu soo xiro computerka waxa ugu horeeya hard drive oo ah kan xogta u keydiya computerka the hard drive waa halka computerkii muuqaaladii xogtii windowgii faylashii operating system taqaanidin faylashoo dhan computerka halka ay ku wada jiraan adii taleefankaaga maskaxu leeyahay sax maskaxda taleefankaaga uu leeyahay waa hard drive-ki macnaha saas oo kale taleefankaaga waa 16 64 GB saas oo kale marka computer markaa gadanaysa hard drive-kiisa waa in uu ka yaraanin 500 GB ama uu noqdo 1000 oo ah 1 terabyte ama wax la mid ah marka hard drive ayaa la yiraahdaa waa canjalka xogta computerka dhan u haya marka install kareynay baltay halkan ayaa keenay oo waxaan dhahay waan toosiyay gidi waxaan dhahay install waxaan ku xiray 4 bool laba dhinacan laba kadaale waxa ii xigo halkaasi aan markaan kaga gudbo external drives in external base oo ah canjaladaha ama markaasi aaladaha dibadda laga soo geliyo computerka waxa ugu horeeya canjal xambaare la yiraahdo magaciisa DVD drive the DVD drive waa canjalka birbirqaya halka la soo geliyo DVD waxa laga soo gaabshay digital video disc ama DC badanaa marka waxay dhahaan CD drive ama optical drive CD waxay u taagan tahay compact disc marka halkan ayaa la taabtaa si uu soo baxo tray qaanadkan marka inta taabto qaanadkan ayaa soo bixi doona kan wuxuu ku tilmaamaa in canjalkan uu shaqeynayo macnaha uu dib haysto halkan waxaa la yiraahdaa emergency eject oo ah haddii halkan ay ku shaqeey weyso ama korontada ay tagto inaad cibad qaadatid oo had halkan gelisid marka aad gelisid halkan waxa soo bixi doona tray-ga marka aan install kareynayo waan ku doosinayaa godka waxaan leeyahay install gidi waxaan soo qabsanayaa 4 bool labada dhinaca iyo laba kadaale waxa ii xigo in aan soo geliyo markaasi floppy drive hadda waa laga guuray balse waa lagu sii tusayaa halkan waxaa la gelin jiray canjalo nooca floppy la yiraahdo oo aan hadda la isticmaalin oo dhalinyarta hadda jirtaysan arkin wixii 2000 ka dambeeyay 90kii ayaa loo isticmaali jiray hadda waxa bedelay flash disk floppy marka waa meesha la gelinayo floppy drive ayaa la yiraahdaa marka install kareynay bal eeg marka waan soo qaadayaa waxaan keenayaa halkan waxaan leeyahay install waan ku doosinayaa godkiisa kadib waxaan leeyahay install kadib waxaan qaadanayaa 4 bool laba dhinaca iyo laba kadaale waxa uu gudbiyaa fiilooyinkii gudaha computerka kaga jira waxa ugu horeeyo fiilo markaasi la yiraahdo 20 pin oo 20 ilka leh oo la yiraahdo advanced technology extended ATX waa fiiladan ayaa waxaan ku xiray motherboardka maxay qabataa fiiladan waxay dab ka soo qaataa power supply waxayna siisaa dabkaasi computerka waxa ii xigo fiilo markaasi 4 pin oo la yiraahdo auxiliary power fiiladan waa dabka bixiso waxayna siisaa motherboardka waxaan leeyahay install waan wareejiyay kadib ayaan waxaan dhahay install waxa ii xigo fiilo markaasi la yiraahdo SATA power connector SATA power waa fiilo dab bixisa oo iyadana siisa hard diskiga ama hard drive-ka marka aan klik ku dhaho iyada meesha la geli lahaa ayaa lii tilmaamay waa hard diskaha klik ayaan ku dhahay geli way ku xirmaysaa uma baahna howl kale waxa ii xigo fiilo ilkaheeda markaasi godgod ah oo la yiraahdo Molex power connector waa fiilo dab siisa markaasi DVD drive-ka daay aan soo geliyay klik ayaan ku dhahay halka la geli lahaa khalaas waxa ii xigo Verge power oo isagana dab siin doono
markaasi godkan la yiraahdo aaladda la yiraahdo markaasi Fluby Drive hadaan soo xiray marka aan kale ku dhaho isaga godka la geli lahay ayaa la tilmaamay kadib waxaan dhahay install ku xir marka aan xiro waxa ugu dambeeyo oo aan baran doono waa qaybo badan laakiin mar waxa tira systemka waxa jirto geeska kaga xiran waxa la yiraahdaa case fan ama system fan fiiladeeda ayaan xirayaa marka halkan ayaan ku xiray waxay leedahay 3 ilko kadib install aan dhahay intaas marka aan kaga soo gudbo case fan oo power oo fiilada dabka siinaysa ah waxaan ku gudbayaa fiilo la yiraahdo xogta qaata oo la yiraahdo SATA oo laga soo gaabshay Serial Advanced Technology Attachment fiiladan waxay xog ka soo qaataa hard diskiga una geysaa waxayna ku xiran tahay motherboardka waxa ku xireynaa motherboardka waa fiilo hata dunida u wada guurtay marka ku aadisid install ayaa leedahay afkeeda ayaa kale ku leedahay waxa dooranaya hard diskiga meesha loogu xiri lahaa wad wareejinay wax yar kadib waxa leedahay install waxa ii xigo inaan xiriiriyo markan fiilo la yiraahdo PETA oo la yiraahdo Parallel Advanced Technology Attachment PETA marka la xiriirinayo iyadana waatan waa fiiladan CSI ayuu buuku ku sheegay Small Computer System Interface fiiladan waa fiilo balaaran laakiin hadda waxa bedelayo fiiladan batatan baa laga soo guuro labadan fiilo iyadoo ugu wacan tahay kuleelka neefta ay ku celinayaan computerka hawada ay ku celiyeen sidoo kalena waxay keeneen markaas wax la yiraahdo qashinkii ama boorkii ama dustigii boorka ay qabanayaan computerkii waxa dhacayso in uu wasakh noqdo marka qolqolka hawada waxa ku wanaagsan computerka dhexdiisa fiiladan waana loo guuray totally waa loo wada guuray marka tan marka xirayo waxaan soo jiidiyaa iyada waxaan ku aadinayaa godkeeda waan wareejinayaa wax yar kadib waxaan leeyahay install marka install dhaho afkeeda ayaan kala ku leeyahay waxay ku xirmaysaa DVD drive-ka marka waa fiilo iyadana xogta soo qaata waxay isku xirtaa DVD drive-ka iyo computerkaagii waa fiilada motherboard-ka iyo waxay isku xiraysaa DVD drive-ka waa fiilada xogta la isugu gudbiyo fiilooyinkan dhan saddexdan waa data cable waxa ii xigo fiiladan oo la yiraahdo Fluby cable iyadana marka aan soo jiido waa sida beeti oo kale way balaaran tahay waxa keenay qaybtan waa toosina marka install dhaho waxaan ku dhufanaa afkeeda waxaan ku sii dhufanaa Flubygii lagu xiri lahaa waan gedinayaa aayar kadib waxaan leeyahay install markaan intaasi ka dhamaado batatan waxa wada xiray dhammaan aaladihii ku jiray computerkayga gudihiisa waxaan u gudbiyaa okay anigoo dhahaya hal mar waxaan u gudbiyaa intaano aalad markii aan wada xiro magacyadoodana I hope inaad nooyid kareysatay waxaan u gudbiyaa external cables fiilooyinkii dibadda loogu xiriyo computerka horta daboolka computerka waa inaad ku xirtid daboolka markii aan ku xiro halkan 6 bool ayaa gadaal kaga xirmi doono markii aan wada xiro waxa ugu horeeya fiiladii shaashada muuqaalka oo keelaheed ee la yiraahdo VGA cable ama video cable waxaan ku xiriyaa godkeeda iyadana gidi waxaan leeyahay install boolal iyada ayaa wadato oo isku xirayso waxaan xirayaa keyboardadii hore noocan waa keyboardadii hore xanaftan inta ah ayaan dhanka midig marin doonaa kadib waxaan leeyahay install waxaan soo jiidiyaa sidoo kale muuska isagana sidoo kale ayaan dhihi doonaa oo hadda muusiska jiro waxay u guureen USB-ga hala yaabin kuwan waa noocii hore waxaan dhahay install si dadka loo tuso macnaa waa lagu tababarayaa waxa ii xigo fiilo oo USB ah waxay noqon kartaa fiiladan laba mid mobile-ka aad ku xiranaysid ama printer-ka by the way godka ay ku xirmayso in lagu tuso oo kaliya ayaa lagala jeeday waxaan dhahay marka install waxaan u gudbiyaa fiiladii internet-ka keeni lahayd computerka waxaa la yiraahdaa Ethernet cable afkeeda waa noocan waa fiilada marka haddii aad aragtid ama internet u gurigaada kugu jiro madaxa hormuud wuu wataa khalaas fiiladan noocan ah marka landline-kana iyana fiilo gooni leeyihiin oo RJ11 iyo RJ45 ayaa la kala yiraahdaa oo insha Allah book soo socday aad ku arki doontaan waxaana marka install waxa uu gudbay qayb la yiraahdo wireless antenna hadda ay kaara soo xirna hadii aad xasuus leedahay oo la yiraahdo wireless network interface kaarkaasi ayaa halkan chipkan lagu xiraa marka antennadan markii lagu xiro kaarkaasi waxa sahlanaanayso inuu gaaro agagaarka oo idin network markaasi gadho
markaasi networkyada computerkaaga u dhow dhan way soo qaban doonaan hadduu alla idmo. waxa ugu dambeyn xiri doonaa fiilada dabka siiso computerkaaga oo la yidhahdo power cord. waa fiiladan waa chargerka ay surmee waxayna kadib toos u gali doontaa power supply-ga hadduu alla idmo. good. halkaas waxaan ku soo koobay sida loo dhiso computer iyadoo weliba ah si basic ah. waxaan rajeynaa in aad si fiican u noyd karaysatay dhammaan qodobada aan sheegay. imtixaanka la kali doono ee hardware-kana wuxuu ku saabsan yahay in markaasi ardaygu uu soo qorto noyd ama dhowr warqado markaasi warbixinaadka aan soo akhriyay oo Soomaali ah. kadibna insha Allah su'aaluhu imtixaanka ay noqon doonaan kuwa markaasi afka laga weydiin doono aalad walba iyo fahamka ama waxa aad ka fahamsan tahay hadduu alla idmo. waxaan leeyahay marka okay qaybta testiga ah waxa waaye adiga ayaa istijaabinaya sida loo xirxiro. qaybta explorer-kana waxaa ku jira computerkii oo xirxiran. halkan waxaa ku xiray DVD drive-ka oo canjal xambaariye ah. kan waa floppy canjalaha nooca floppy-ga xambaara. labadan marka hata kan waa laga guuri kan oo geliya ku dambeeya computerada dhif waana laga sii guuriyaa isaga. kan waa hard disk-iyo xogta dhan computerka nooca haya. laba nooc oo kala baxan SSD iyo nooc markaasi HDD ah. HDD waxa ku dhex jiro saxaman wareegsanay halka SSD-ga ay yihiin chip waa fast SSD-ga waana boqolkiiba ka degdeg badan yihiin computerradan hard disk-yaasha nooca HDD-ga ah. marka SSD-ga anay kula jeclahay inaad iibsatid hadiiba computer aad iibsanaysid hard disk-ka ku jira SSD miyaa mise HDD-da. kan waxa waaye saata fiiladii oo xogta u geynaysa hard disk-ka. alwaaxan weyn waxaa la yidhahdaa motherboard. waa alwaaxii ay ku wada xirmayeen dhammaan xogta computerka ma jir computerka. wireless network interface card waa kaarka day aan kuu sheegay aan ku xiray anteenadii. waxaa ii xigo kaarkan oo la yidhahdo network interface card oo ah kaarka fiilada daloolka la gelinayo fiilada internetka. iyo video adapter card oo ah kaarka markaasi laga soo gudbiyo muuqaalka. iyo power supply-gii oo qeybihii computerkaaga guud ahaa. iyo heat sink-ga oo ah marwaxada CPU ku dul xiran. haddaan dhinacan u gudoomo waan sii gudoomo waxa arki doonaa aaladihii dhifa motherboard-ka la tusay. hataa kadaal u sii gudoomo bal maxaa arki doonaa marka wax badan ma arki doontid. by the way muuqaalkan halkaas ayaan ku soo koobay. waxaan rajeynaa inaad wax badan ka faa'iiday. salaam Allah.